maanta taariikhda 3 saacada markii ahayd adiga 9 barkii ayaa waxaan loo keenay dhaawac ka kooban markii uu wareystay wuxuu ahaa dhaawac 3 qof iyo meyd 3 qof marka alxamdulillah anigoo la dhaawacii wala tacaalnay xaaladda hadda way degan tahay laba kamida dhaawac aad u cusla markii refer digfeer isbitaalka weyn ee Erdogan uu fargareynay saddexda meydkana ayaan hadda la diyaarinaa in dadkiisa ay qaataan مننا ونجيفا على الدور الربيع الحمد لله وليس مجرو أنت سمعت دعوة رحت أنا قدوميها ما أعرف قدوميها سوء عفمات خوي كان في تحتاجين هاي وكانوا وعاونين هاي لكن قفك دعوة وها إكس حلبان هري سيد من الله شيء حلبان عرالة أصين حال ديس آذو فعلي الحمد لله لكن هذا حلو ريفرجري أرد عن هسبتا هل ولا عجرة هل ديس استيبل وايل لطول كتبينها دعوة لطول عجرة وكهذا إسفار كجيفا إن شاء الله dagar qabooyinkii oo mar walba dariiqa noo taagano ummadii maaragtay ay sheeg caqabad soo taagan noqdeen ilaahay waxaan leenahay Allah naga qabto maanta kidibna ilaahay noo soo celiyo garabkoodana ilaahay ka baxo inta ay ummadda u geysanayaan ilaahayna waa daalacana insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inta ay sameynayaan ay maaragtay dagarta ay wadaan insha Allah ta'ala si loo dab istaago oo meel walba ay istaagaan aan maaragtay looga hortagi lahayn waa ka shaqaynaynaa insha Allah ta'ala haddana waxaan leenahay انت داوع الله بوكسيو انت دمتنا الله ونحريس طبعا ضيعتري u baahan yahay laamiga waa u jeedaa gidaarkan dirbiga jabanay hadda ku taakeen waa u jeedaa oo hadda waa dareemi kartiin meeshaas oo jaban dabcan waxay u baahan tahay waa khiyaano ay sameynayaan laakiin khiyaanooyinka hadii la fahmane shacabka degmada deganna waxaan leeyahay war indhihiina fura oo hala dul istaago waxaa mas'uuliyiin leeyihiin gudoomiye laameedii leeyihiin cid walba waxay ka saaran tahay mas'uuliyad laamiga iyo dhinaciisa iyo gurigiisa hortiisa wasaqda iyo bacda taalo waxaan leenahay aan lagu gambanin cid walbana mas'uuliyadda xaq qaadato ilaa yar ilaa weyn insha Allah taala wax sabtama doona hadii la yiraahdo dadna wax ku gaareen rag mas'uuliyiin ah iyo staafkoodi marka ilaahay caafiyan leenahay dhaawaca inta dhimatan Allah u naxariisto insha Allah taala